injiilka sida Luukas u qoray cutubka 13 waqtigaas qudhiisa waxaa joogay qaar wax uga sheegay dad reer Galili oo Bilaatos dhiigooda ku daray allabarigooda kolkaasaa Ciise u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ma waxay idinla tahay in kuwii reer Galili ahaa ay ka dambi badnaayeen kuwii kale oo reer Galili oo dhan waxyaalahaas ay ku silceen aawadood waxaan idinku leeyahay maya laakiin haddaanad toobad keenin kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan ama 18 oo munaaradda Siloam ay ku dhacday oo ay dishay ama waxay idinla tahay inay ka gafadnaayeen dadka Yeruusaalem joogay oo dhan waxaan idinku leeyahay maya laakiin haddaydnaan toobad keenin kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan markaasuu masaalkan kula hadlay ninbaa wuxuu lahaa geed berde ah oo beertiisa canabka ahayd lagu beeray waa u yimid isagoo midho ka doonaya waxbana kama u helin wuxuu beerka shaqeeyihii ku yidhi bal eeg 3 sannadood ayaan imanayay oo berdahan midho ka doonayay kama helin jar muxuu dhulka u khasaarinayaa markaasuu u jawaabay oo ku yidhi sayidow sannadanna daa ilaa aan hareerihiisa qodqodo oo aan digeeyo dabadeed hadduu midhaysto wanaag haddii kalese waad jari doontaa maalin sabtiya sunugogyada midkood ayuu wax ku barayay oo baleeg waxaa joogtay naag 18 sannadood cudur qabtay wayna isku soo jabnayd mana ay kari karin inay istoosiso Ciise goortuu arkay ayuu u yeedhay oo ku yidhi haweentoy cudurkaaga waad ka furan tahay kolkaasuu gacmihiisa saaray oo kolkiiba way toosnaatay oo Ilaah bay ammaantay kii sunagoga u sarreeyay ayaa cadhow ku jawaabay waayo Ciise maalintii sabtida ahayd ayuu wax bogsiiyey wuxuuna dadkii badnaa ku yidhi waxaa jira 6 maalmood oo ay dadkii leeyihiin inay shaqeeyaan maalmahaas haddaba kaalaya ha laydin bogsiiye ha imanina maalinta sabtida laakiin sayidka ayaa u jawaabay oo ku yidhi laba wajiilayahow mid kasta oo idinka mida miyaanu sabtida dibigiisa ama dameerkiisa ka soo furin golaha oo u wadin inuu soo waraabiyo oo naagtan oo ina Ibraahina oo shaydaanku 18 sannadood xidhay miyaanay lahayn in maalinta sabtida ah laga furo xidhmadaas goortuu waxaas yidhi calaawayaashiisii oo dhan way wada ceeboobeen dadkii oo dhanna ayaa ku reereeyey wax walba oo ammaanta lahaa oo uu falay haddaba wuxuu yidhi boqortooyada Ilaah maxay u eg tahay oo maxaan u ekaysiiyaa waxay u eg tahay inin khardala oo nin qaaday oo beertiisa ku riday oo ay baxday oo geed dheer noqotay shimbiraha cirkuna laamaheeday ku degeen haddana wuxuu ku yidhi maxaan boqortooyada Ilaah u ekaysiiyaa waxay u eg tahay khamiir naag intay qaaday ay 3 qiyaasood oo bura ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen oo wuxuu dhex marayay magaalooyin iyo tuulooyin isagoo wax baraya Yeruusaalemna ayuu ku socday midbaa wuxuu ku yidhi sayidow ma yar yihiin kuwa badbaadaya wuxuuna ku yidhi aad u dadaala inaad iridda cidhiidhsan ka gashaan waayo waxaan idinku leeyahay qaar badan ayaa dooni doona inay galaan mana kari doonaan goortii ninkii guriga lahaa kaco oo albaabka xidho oo aad bilowdaan inaad dibadda istaagtaan oo aad albaabka garaacdaan idinkoo le sayidow naga fur isaguna waa u jawaabi doonaa oo idinku odhan doonaa garan maayo meeshaad ka timaadeen markaasaad bilaabi doontaan inaad tidhaahdaan hortaada ayaanu wax ku cuni jirnay oo ku cabbi jirnay oo jidadkayaga ayaad wax ku bari jirtay markaasuu odhan doonaa waxaan idinku leeyahay garan maayo meeshaad ka timaadeen iga taga kulligiin oo xaqdarrada ka shaqeeya halkaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jiriqsi goortaad boqortooyada Ilaah ku aragtaan Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub iyo nebiyada oo dhan oo idinkana dibadda laydin tuuray waxay ka iman doonaan bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur waxayna dhex fadhiisan doonaan boqortooyada Ilaah ogaada kuwa ugu dambeeya ayaa ugu horeyn doona kuwa ugu horeeyana way ugu dambayn doonaan markaas qudhiisa ayaa waxaa yimid qaar Farisiina iyagoo ku leh bax oo ka tag meeshan waayo Herodos ayaa doonaya inuu ku dilo
wuxuu iyaga ku yidhi idinku u taga oo dawacaas u sheega bal eeg maanta iyo berriba ayaan jinniyo saarayaa oo dad bogsiinayaa maalinta saddexaadna ayaan kaamilmayaa laakiin waa inaan socdo maanta iyo berri iyo maalinta ku xigtaba waayo ma noqon karto nebi inuu ku dhinto yeruusaalem dibaddeeda yeruusaalemey yeruusaalemey tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydnaan jeclayn ogaada gurigiinnii waa laydiin daayey isagoo cidla'a waxaan idinku leeyahay ima arki doontaan ilaa aad tidhaahdaan waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imanaya